raxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo Somali Bridge TV waxaan toos idinkaga soo tabinaynaa barnaamijkan aqalka golaha deegaanka ee CTAC waa magaalo ku dhagan ama ku taala nawaaxiga magaalada Seattle ee gobolka Washington waxay caan ku tahay CTAC waxa ku yaala garoonka weyn ee internationalka ee diyaaradaha ee CTAC International waxaa garabkayga fadhiya محمد علي عقال ودوان لو دورتي دقة مقالة سيتاك هدي عن تاريخ يوروكوبا إذن كسي محمد أما إذن لو ذاقو حقير محمد وحو كمدها أفر سومالي أو لبسانا كهر لو دورتي بوسس كلا دوان قولو وين سوهي محمد إسلام مركا إساقا وحا لو دورتي golaha deegaanka ee CTAC balse hadda waxaa loo doortay duqa magaalada ee CTAC inta aan ka wada hadlin barnaamijkan aan u gudagelin iyo guushan weyn marka hore waxaan rabay bal inaan maxamed iskiin baro maxamed marka hore hambaliyo aad baan kugu hambaliyeen haddaan nahay bahda Somali Bridge soo dhawow السلام عليكم عبد الرحمن يا Somali Bridge iyo dadka ku xiran oo macaamiisha u ah oo lana soo xiriira aad baan ugu faraxsanahay maanta inay noo timaadaan maxamed waan ka wareysan doonaa muhiimadda ay leedahay booskan maanta aad ku fadhido iyo waxyaabaha aad ku soo kordhin karto bulshada marka hore laakiin waxaan rabaa dadweynaha ina daawanaya bal horta maxamed cali cigaal ood garanaysaa haddaan kula kaftamo axmed cali cigaal ood garanaysaa magac famous ah maxaa idinka dhexeeya midda kale taariikhdaada oo koobanna bal waayo محمد علي عقال بل واحد هداد نود المرت horta ani maxamed cali cigaal baa la yiraahdaa axmed cali cigaal ilaahay ciisi sharaf meel kasoo maanta jooga adduunka maarta ku nooleeyo fanaan ma noqon karo axmed cali cigaal xitaa agtiisa ma istaagi karo waan aqaanaa saaxiib baan nahay laakiin waa cigaal kale cigaalkaas wuxuu ahaa cigaal meesha la yiraahdo ii sheeg galbeedka mudug ka yimid anigu waxaan ahay cigaalka bariga mudug ka yimid wasla maarta cigaal kale weeye anigu waxaan ku dhashay horaantii 70-yadii meesha la yiraahdo degmada Jariiban gobolka mudug ka mid ah halkaas aan wax ku bartay noloshaydii asaasiga ah halkaas aan ku qaatay dugsigayga hoose halkaas aan ka bilaabay dugsigayga dhexe xamar baan ku dhameystay famil badan oo caan ah oo hormoodkii areas ah baan ka dhashay waxaa lagu soo badbaadiyey in qofka waxaa la yiri nin mudug jooga ilaahay uma ceeb qarin inuu qofku qof noqdo nolosha qof noqdo macnihii inaad nolosha daashid adigu noloshaada daashid wadankaaga xilkaa saaran yahay dadkaaga xilkaa saaran yahay wax noocaasa saasaan weligay igu jidhay ma aaminsanin weligay in cid iga fiican tahay in cad iga fiican yahay nin madow iga fiican yahay mid carabi iga fiican yahay marka mentalitygaas asaaskayga noloshayda fikirkayga horta saas ku salaysnaa markaan dugsiga sare ka baxay jaamacaddii la foolaan galay qabti baa dhacday America markaas yimid waxaan imid dadka ugu soo horeeyay wadankan weligay waxaan jeclaa waxay qofba waxba jecel yahay nolosha anigu mar walba markaan arko bini aadamka dhibtiisa way dhibi jiray xitaa hadday noqoto maaragta waxaan garanayaa 1984kii macaloola Ethiopia ka dhacay runtii anigu wax badan ma haysan laakiin dadka dhibta haysta bini aadamnimada marka social worker baan noqday dadka uu maaragta u shaqeeya dadka kale waliba dadka qaxootiga halkaas case manager baan ka noqday hay'adaha qaxootiga dejiya charge for services kadib program manager baan noqday kadib waxaan u guuray Ohio markaas xoogaa business galayo meel barkinaan manager ka aan jiray leadership baan weliga ku soo dhex jiray quality aan schoolna loo aadin laakiin natural ah oo inaan hogaamiye noqdo oo hogaamiyanimaduna maahan dee waxaasan ku siinayaa ama waxaasan kugu samaynayaa caqliga wala isku darsaa hogaamiyenimada ah baa igu jidhay waayo xurmaan u hayaa dadka kale inaan weliba waxaan jeclahay dadka aanu kala fikir duwanahay halkan waxaan u soo guuray gobolkan 2008kii markaan soo galay shaqadeydii hore u watay kadibna dhibaatooyin halkan ka dhacay oo haddaad rabtid aanu geli karno sababihii uu kalifay iyo baan siyaasadda u galay maasha allah haddii aan u soo noqono waxaan filayaa
howlaha aad ka hadlayso waxay ku xidhan tahay sababta aduu laftarkaagu aad siyaasadda u gashay haddaan usoo noqono booskan waxaa lagu doortay markii hore golaha deegaanka haddana waxaa tahay duqa magaalada waa markii ugu horreysay oo qof madow ah soomaali ah muslin ah uu ka noqdo meeyar gobolka Washington waa guul weyn runtii maxay kaaga dhigan tahay waxay iga dhigan tahay waxaan muddo ka shaqaynayay oo anigu aan ogaa inay igu jidho in dadka kala arkeen macnihii qofku waa ordi karaa oo kursi waa loo ordi karaa waa lagu guulaysan karaa waa lagu guuldaray weliba labada dhinac waan soo arkay marna waa laga soo adkaaday marna waan soo adkaaday runtii maamaa ingiriisa waxay tahay runtii qofku wuxuu yahay waxaa la arkaa marka laga adkaado marka uu adkaado lama arko qof walba waa fiican yahay laakiin marka laga adkaado 2019 waa orday waa laga adkaaday isma dhiibin ma tegin waxaan sameeyey asxaab baan sii samaystay valuegi iyo waxaan aniga igu kalifay baan ka sii shaqeeyey dad badan baan la sii shaqeeyey markii dambe 2021kii aan ordayna waan guulaystay markaan guulaystay haddana magaaladii baanu runtii anagu majority noqonnay waddankan maraykanka waa collective leadership wax la dhahay leeyihiin qof leh ma jiro anaa wax walbo balkaas samee saas samee magaciisii caqli la isku aruuriyey weeye macnihii hadda toddobadayadaas afar meesha isku raacdo haddii aniga iyo laba kale aan galno waxaa ka hor nimaadno afarta kale isku raacdaan maayar baa tahay maayarkii baa yidhi ma ahan ma fahan marka leaderku waa kan aruuriyo fikirka kala duwan ee dadka macnihii haddoo kale bishaan dhammaadkeeda haddii alladno meel baan isku raacayna annagoo dhan 2 maalmood baan joogaynaa waxaa la iga baahan yahay marka inaan anigu keeno waxa toddobadaas kuwa aanu isku fikirka kala duwan nahay iyo kuwa aanu isku fikirka nahay mid walba wuxuu rabaa intaas soo ogaado inaan markaas aan proposal keeno aan iraahdo intaas iyo for example waxyaalo waxaa jira every 10 years magaalooyinku ay sameeyaan oo sharcigu state-ku uga baahan yahay oo kale marka wax walba intaan diyaariyo taasna waa leadership runtii markii maayarka la yidhi maayar noqo wax runtii weyn bay ila noqotay laakiin waxaan ogaa waxaan u samaysnahay waayo waan ka soo dhex muujiyey intaas waxyaalo badan baanu soo marnayo hadda waxyaalaha rental assistance-ga iyo rental control-ka ah magaaladeedu waxay noqotay magaalada saddexaad ee xakamaysa rentiga dadka inta laga qaado kirooyinka sorry ingiriis baan ku hadlaya iska caadiya marka kirooyinka waxaysay waxaa keenay gobolkan waxaa adag noloshii baa adag marka laba dad baa degan dad wax haysta oo lacag ciddaa ka badan haysta dadka technology-ga ka shaqeeya dadka kabariyada technology macnihii adduunka maanta waxay laga soo saaro Seattle waa number 1 dhinaca technology ama number 2 bay noqotaa dadka meesha ka shaqeeya waa dad intaasoo milyan oo dollar bay sanadkii sameeyaan iyo dadka subaxii jarmaada oo garab raratada actually ma faham aniga dadka garab raratada ah way dadka soo doortay maahan Soomaali kaliya maahan Ethiopian kaliya maahan dadka Carabta iyo meelaha ka yimid laakiin dadka madowga dadka cadaanka ma faham dadkaas area dadkaas soo doortay waayo dadkaas aan u shaqayn jiray markaas soo shaqo ka dhacaa dadkaas baan aqaanaa waxa dhibta haysata iyo dheefta ay haystaanba marka laakiin ragga la shaqaynay qaar baan waxaan ka soo horjeedaa aniga markasta marka waxaan ku dadaalaa in dadkaas skill ay yeeshaan si ay shaqada 20 iyo 30 dollar intay uga baxaan mid 60 iyo 70 dollar si noloshoodu u xiyaan marka waa inaan la imaado karti ah inaan heli karo qofka kale oo xildhibaanka ah inuu aniga tayda oo maarta taageero saan asagana u taageerto rabo marar waxaad imaanaysa waxaad rabin lagu wadiinayo laakiin waxaad rabtid iyo waxaas ba isbarbar dhigaysaa keeba marka adiga dan kugu jira marka marka u soo noqdo markii la yiri maayarno wixii aan ka shaqeeyay oo aan ku tusay inaan skillkeeda xirfadeeda leeyahay markaanu kirada xakameynteeda aan sameeynay shanteedii isku xisbiga ahaa ba saddex kala tagay waliba qaarkood waxay ka noqotay يعني بيرسونال سياسة دون بيا بيرسونال كل كتوه كلا دويين وحمل الإسلام جالس نقف كذي وعي مجلسي
waxa isku qabtay ma 60 cashaan ka dhignaa in qofka la yiraahdo haddaan intaa bixinin guriga ka guur mise waxaan ka dhignaa 120 60 iyo 120 waa maalin anaa isku keenay ma fahan anaa ku yiri baluka adigu waay maxaad waxaan u sameynaysaa aduna maxaa u sameynaysaa isku keenay aqli macni marka halkaas waxa ii sameysay inaa ahay nin oday oo leader oo skill oo qof walba tiisa meeshiisa ugu tagi kara oo keeni kara oo aqli lagu wada shaqeeyo saanu de fikirka guud waan ka midaysanahay laakiin tan gaarka ah iyo taas aan isku waafajinahay markii aad ahayd golaha deegaanka caqabadaha jiray qaab baad u shaqayn jirtay hadda waxaa tahay duqa magaalada waxaad booskan u fadhidaa dad fara badan Soomaali waa ku fiirinaysa maxay yihiin marka laga tago waxyaabaha aad ka dhawaajisay sida laga caawinayo dadka guryaha kirooyinka guryaha maxay yihiin caqabadaha ku hor yaala aad oran karto caqabado tiro badan baa jira laakiin fursado kalena waa jira fursadaha marka u hormaraya si aan caqabadahaas jira aan ayadan uga hadalno fursadaha jira waxa weeyaan horta maamaha ingiriiska waxay tahay si ay qoraxdu u soo baxdo habeen baa ka horeeya macni waxa weeyaan qoraxdu inay qorax tahay maad fahantay bini'aadamku ma garteen iyo wanaageeda haddaan habeennimo la arag waxa dhibtaa oo jira waxa ka dambeeya dheeftaas marka ka dambaysa waa in aad ogaato haddana habeen dambe inuu imaanayo sharcigu stateku wuxuu leeyahay magaaladu waa inay samayso waxa la yidhaahdo growth management fiditaankeeda iyo koritaankeeda waa in la xakameeyo see baa loo xakameynaya isaashu ma waxaad ogolaan guryo nooceeyaa la ogolaanaya ma abaarmantiyada qaaliga ah baa la ogolaanaya in laga dhiso ma guryaha single family housing oo guryaha dadku ay leeyihiin oo familku leeyihiin baa la ogol kuwa waxay rabaan in la yiraahdo guryaha singleka haba la baabi'iyo meel walba abaarmanta laga dhiso qolana waxay leeyihiin meel walba laga dhiso marka kood ba jira growth managementku sidii waxay oran ka dhacan waxaan rabnaa 70% in abaarmanta noqono waxaan rabnaa 30% inay noqoto macnihii halka opportunity weyn baa ka furan ina aqliga isku karo waliba sanadkan weeye every 10 years waxa marka dhibta jidda marka oo ugu weyn magaaladan taas waa opportunity waa guryaha saan soo sheegnay qof Uber wada ama taxi wada oo 16 hours shaqeynaya oo 300 maalintii sameynaya oo marka kharashkiisa wixiisii gaaskiisa laga jaro ay u soo harayso $2,000 waliba aniga dadkii soo doortay dadkaygii ah ma fahan guride $4,000 iskama bixin karaan aniga marka waxa la iga baahan yahay inaan la imaado aqliga aan uga gadi lahaa anoo majority councilka aan hayo nimankii guryaha dhisanayay oo real estate ka ahaa oo very powerful I mean lobbyalaho dadka sharciyada dejiyaasha la shaqeeyo inaan la imaado xirfad ah inaan tuso inay dani ugu jiro ayagu inay dadkaas guryo noocaas ay meeshan ka dhisaan ma fahan maxaa ka mid ah tax credit baan la siin karaa 20 years inaan cashuur bixin oo kale ay sidhigaasiin okay baa one number 2 maxaa kale waxaa kaloo jira waxa la yiraahdo bank loan structure oo kale guryaha lacag lagu dhiso bank baa laga soo qaadaa badanaaba abaarmatiyada real estate-yada marka ay sameynayaan 20 sano mid baan u shaqayn jiray aan waan aqaanaa insider baan ahay sida affordable housing loo sameeyo waxa la yiraahdo guryaha lagu noolaan karo ama qiimaha jaban 20 sano bay ku bixiyaan wada abu 20 ka sano intii aad loonkaas bixin lahayd 30 sano haddaad ka dhigtay ka hor ومحد كويليسا واحد كويليسا دتين انتي او كود دغن او awoodo inay ku noolaadaan oo noloshoodu nolol macna leh oo ciyaalkoogi iyo reerkoogi macnaheedu marka waxa laga baahan yahay aqligaas qoladan councilkana inaad ka gadid qoladii meesha dhiseen inaad ka gadid sidhigiina inaad ka gadid ma fahan macnaheedu marka caqabadu ugu waa guryaha iyo nolosha iyo opportunity oo jidhay oo fursadii oo jidhay oo ah in la yimaado sanadkan way sanadka la sameynayo sanadkan maayarka ugu horeeyay noqday weeye oo aan majority-ga councilka aan keeni karo haddii aan dee aan skillkeeda la imaado aad baa u mahadsantahay haddii aan u noqono dhanka Soomaalidu aad bay u soo dhaynayaan maadaama hadda
adiga aad madax u tahay magaalada Seataag oo runtii halbowle ah oo magaalada garanaysa shaqooyinka airportkii baa ku yaala dhanka shaqa abuurista Soomaalida maxaad leedahay kaga qorshaysan yihiin very good question horta dadka Soomaalida ah aan xitaa waxaan ka dhaxay White House dadka Soomaalida ah waa dad karti badan waa dad wax soo saar badan waa dad nin baan waxaan ku yiri annaga ninku wuxuu dhali karaa 10 ciyaala ma jiro system magaciisa nin walba 10 ciyaal soo dhaqeen nin walba iskuul baa loo dirayaa quraankii baa la barahayaa waa la tarbiyeenayaa waayo qofku isaga macnihii qofka dignitigiisa iyo sharaftiisa iyo cisigiisa iyo magaciisiisa macnihii dad waxaan nahay nolosha siday tahay uga bixi kara waana nal ku soo abaabiyay ma fahant macnihii dad welfare la siiyo system ku noolo manihin dad waxaan nahay kartideed iyo aqoonteed leh marka America wax ayadan asxaan u sameyn anaga America asxaan nooma sameyn runtii xaqiiqiyan marka arinta shaqada waxa weeye dhowr arrimood baa igala kulmay waxa kamid ah bari waan maalin baan anoo albaab garaacaya baan wiil dhalinyara baan asay xaaskiis way fadgareeyaan asoo ma joogo mar walba marna wuu jiifaa marna wuu maqaya gabadha waxay ugu tiri de odaygii waa maqan yahay ma fahan maalintii dama asoo baarka markaa baawrka soo dhintay waan wasoorsay iyo warano magaciisa nin dhalinyara waa 24 jir meelahaas wuxuu igu yiri niyo waxaan shaqeeyaa 16 saac suudi abaarbatiyaas u bixiyo 16 saac okay waxaan ku yiri 16 saac adigu intuu sameeyay iyo magaciisigii dadka Soomaalida waa dad iska calool furan magaciisiyo buu ii sheegayo macnaheedu ninkaas nolosha halgan adag buu kula jiraa macnaheedu hadii ay Mareykanku iyo dadkaas oo kale heli lahaayeen waa dadka ay ahayd halaba in loo dhiso kaas oo kale barafka aragtay dhaxanta aragtay roobka aragtay aeroboortka intuu qof ka qaado default geynayo oo $40 ku geynay marka fikir baan la imid meeyarkii markaas joogay Simpson baana arinta muddo kala sheekayso wadin Soomaalida aad u jecel dad Soomaalida ku dhex jira waxaan la nimid fikir ah dadka dhalinyarada ah oo Uber-ka wada ama warehouse ka shaqeeya haddii aan ka bixino hal sano gurihii waxay Uber ka sameynayaan aanu siino laakiin aan iraahno waxa aataan rental community college taga soo barta airplane mechanic inaad noqotaan dadka biraha diyaaradaha xiraa waxa meeshan waxa ku yaala kambaniyada ugu waaweyn adduunka oo u baahan shaqo dad u shaqeeya just maxaad u baahan tahay certificate rental community college inaad tagtid oo ama mechanic noqotid ama quality control noqotid ama wax noocaas ma faham halkaas sano markaa certificate soo qaadatid point actually college markaa ka soo baxday albaabka ku taagay waa ku hayr garanaya $70 baad ku bilaabaysaa shaqo already middle class baad ma faham guri baad gadanaysaa guriga waa 700 kun oo halkaan laga gato kale 700 sidhigu waxaad siinaysaa 18% already lacagta aanu gelinay halkaas sano every year wuxuuna siinayaa 18% of 700,000 waa 54,000 baa maleen waxaan xaasay tahay ma garad xisaabtu waa laga fiican koodi macnaheedu waxaan ka wadaa waa investment waa oo qofkii lagu sameynayo okay vacation buu qaadanayaa ciyaalkiisu suulka u raacayaa familkiisu macnihii time uu gelinayaa ay ma fahamtid noloshooda ay u haystaan wixii marka $3 milyan baan ka soo helay Washington DC baan aaday senatarada Murray baan ka gaday number of organization halkaan baa la hadlay waxaan hadda facekii implementation ka baanu bilaabaynaa marka arintaas qorshe nooga degan waa arrin aan rabno haddii aan 2024 inaan opportunity-gan uga faa'iideysto aan qabto waa arrin dadka iyo wadanka naadan ugu jidho dadkii aniga isoo doortaana naadan ugu jidho xalna ah aad iyo aad waa arrin aad loogu riyaaqo dhanka sida gentrification-ka waxa loo yaqaan dadka la barakicinayo guryahooda laga barakicinayo waad la socotaa door weyn baad ka qaadataa runtii waxaa jira santaro waaweyn ama goobo waaweyn oo Soomaalidu ay moolal ku leeyahan jireen oo laga barakiciyo oo development center noqday oo kadibna waxaad ka mid ahay dadkii
dadkaas u gargaaray ee runtii u helay goobo ay degaan oo businessadooda dib uga furaan isla sii taagtan si ayna arrimahaasoo kale u dhicin ama looga hortago barakaca bulshada dadka danyartaa sida soomaalida oo kale arrinka maxaa kaaga qorshaysan waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid a waan ogaaday markaan galay siyaasadda qofka maraykanka ah noloshiisa dowladda federaalka ah 5% baa ku xiran 5 baasaboorka oo state macnihii 5% stateka 15% baa ku xiran 80% waxay ku xirantaa local municipality-ga hadda magaaladan yartaa waa magaalo yar aniga iyo mayorka Seattle iyo kan New York same power baana two mayors baana ma baan in the eyes macnihii waa laga yaabaa inay magaaladu iska lacag badan tahay ka magaciisa badan tahay konsol badan tahay noocaas laakiin marka la eego codka iyo meeqaanka dowladnimada isku magaciisa baana magaalada yartaa dhib bay gaarsiis gabadhii kursiga ku fadhiyi jiray number 7 oo maayarada oo cadaana oo dowladnimada u soo gashay inay Soomaalida ka cayriso waxa dhibtay xijaabka gabdhaha iyaga ay ku aragtay masaajidada hortooda waxa dhibtay wiilkaas meeshii taxiga oo ku qaadiyay $60 $10 ay siinayso nasiibadiisa iyo sanjiyadiisa iyo diintiisa aragtayda dhibtay runtii marka wax kale lama oran karo dhib bay gaarsiis waad ogeyd Bakaara Mool wixii ka dhacay gentrification ku sameeyay sabab baa jira marka waxaan rabaa Soomaalidu inay taa ogaato saddex wax baan isku haysanaa iskuna kaayahaya annaga markaan Ameerika joogo meeshan ku cibaadaysano masaajid isku kaayahaya ma faham meesha aan ka shoob garaysano dukaanka yarka ah waa isku kaayahaya waxa kaloo isku kaayahaya deegaanka aan wada degannahay deegaanka markaan wada degannahay anagu waxaan garanayaa anoo beelfu ka shaqeeyo si taaqada u soo doonta inta baqaad baqada ma aqaan ma xaqraadinay 40 daqiiqo soo ma waan ilaahay amarkiis saas Soomaalidu dhan waa saas hadduu takooma degan yahay hadduu magaciisa si taag iyo magaciisa iyo South Seattle baan imaana si inta isku kaayahayaan oo inta arursanayno dhaqaale waan sameeynaa awood political power-na waan sameeynaa political power baanu sameeynaa oo ah in aanu dad wada doorano oo aanu meydka wada xabaalano oo aanu ciyaalkayga isku wada dirsanno oo aan caruurahayaga xataa isbartaan haddii aan taa laga foojagnaan waxaan noqonaynaa rah biyo ku dhacay xaqiiqiyan qolo waxaa laga tuurayaa Biyaalub qolana waxaa laga tuurayaa Creekland qolana waxaa laga tuurayaa Bellingham qolana waxaa laga tuurayaa Walawala ma fahanti halkaas waxaan ku luminaynaa diintayadii waxaan ku luminaynaa dhaqankayagii waxaan ku luminaynaa I mean it when I say diintayadii Soomaalidu waxa la yiraahdaa il cabsata ma leh il shootay leedahay wax noocaas maamaha jiray ba u maleynaa ku saabsanay haddaad aragtid dad masaajid oo socda waa adaa isla yaabaya maanta dad masaajidkaada jooga arkaysaa haddaad aragtid qof shaqaysanaya adaa isla yaabaya waxa la union kan buu shaqaystaaya ma faham macnaheedu waxa weeye marka intaas aan wada joogno waxyaalaha hadda aan uga hormarnay waxa cajiib ah gobolkan Etoobiyaanka waxa la keenay walaalahayo waxa la keenay 1968 that is 55 years ago maanta dadka laga doorto Soomaalida ka badan waliba dadka ka effectivesan ma fahant I mean seeba gabar Soomaaliyeed the board authority president oo noqon kara macni waa wax cajiib sababtoo ah dadkayaga waa dad karti baan leenahay natural inkastoo de sometimes si qalad ay noo goyso baashaas ma fahant in adeegaas iyo dadnimadaas iyo waxyaalaha waxaas oo dhan marka daraf gareynaya waxa kamid ah wada jirka umad ahaan aan u wada jirino ma fahant marka arintaas ma dhacayso dadkii guryo badan hawlo badan oo GMA-da waxaan ku leeyahay growth management acts ka waan ku dareynaa in dadkii aanu meeshan ku haynaan rabnaa inaanu waxaan rabnaa not inay deganaadaan inay noloshoodu qiimo yeelato ma fahant qofka waa inuu 8 saac uu shaqaysto American philosophy waxa la yiraahdo American dream waa maxay shaqaas maxaa weeye 8 hours
inta kale waa maxay cibaadaysi iyo quality of life inaad yeelatid dadkaygu xaq bay taas u leeyihiin laakiin 16 hours inaanu orodno oo aan guriga iska bixin weyno oo ay macnihii familkaygii aan waqti sii weyno macnihii taas nama qabato marka waxaan rabnaa guryo u qalma oo ay iska bixin karaan oo ay ku noolaan karaan oo ay ku wada joogi karaan oo ay ku cibaadaysan karaan inaanu samayno xaq bayna u leeyihiin anigu ma ihi dadka wantiga aan ogaaday waxaa ka mid ah dad baa waxay aaminsan yihiin haddii la doorto hadday yidhaahdaan anigu Soomaali baan ahay ama dadkaygu waxaas u baahan yihiin in dadka kale ay nacayaan anigu waxaa ma aaminsanay anigu waxaa aaminsanahay inaan macnihii systemkaa ku leh in dadka constituentigaaga soo doortay inaad wax u qabatid dhibtoodana aad keentid councilka si ay sidii wax uga qabato anigu aan ku faanaa dadka macnihii ka cabsado oo wallaahina waxaan rabaa inaan ka mid noqdo magaciisagana warigay mana noqon mana samayn karo maasha allah aad iyo aad xataa akhbaartaad soomaalida u sheegi lahayd guusha maanta aad gaartay iyo waxay uga dhigantay iyo weliba jiilka dambe soo kacaya a very good question wada jirka baa guusha ku jira that's waa number 1 tan labaad oo aan raba inaad ogaataan Soomaalida waxa weeyaan annaga waxa noo dhaxeeya ummadaha kale waxa u dhaxeeya ka badan waxa noo dhaxeeya xaqiiqiyan haddaad aragtid dadka Ukraine ka yimid haddaad aragtid kuwa Russia ka yimid haddaad aragtid kuwa Ethiopia ka yimid haddaad aragtid Carabaha kuwa ka yimid kuwa Iran ka yimid Spanish macnihii Soomaalida waxba noo dhaxeeyaan wax dhaxayntuna waa fiican tahay caqliga iyo fikirka kala duwan oo la isdhaafsado baa waxa caqliga saliimka ka soo baxa xaqiiqiyan marka dadku waa in aanu ogaano waxa noo dhaxeeya wax basiyada inay yihiin ayna tahay wax maaragtaa bini aadamku kale aan la qabno wax gaar nagu ah aanay jirin wada jirku inuu guul keeno inaanu ogaano macnihii haddaan anigu Soomaali heli karo Ethiopian heli karo Carabta iyo dadka heli karo Isbaanishka dadka aan heli karo saan u helay badee inda yarta qaar baan heli karin ay adagta in la helo aan heli karo 35 baan saacadkan u baahanahay maxaan u baahanahay haddaan waxaan u baahanahay 15 16% uga baahanahay xaqiiqiyan ma baan laakiin haddaan dadkayga intaan kala qaybiyo magacyo u yeelo sumado u kala yeelo oo meel cilaabaan alla ma baanti Ethiopian iyo Carabi iyo iska daa laakiin marka waxa weeye guushu waxay ku jiraa in la isku xirnaado meeshaan noloma kala yaqaano hebel baatay hebel baatay hebelaa ka timid magaciisi Soomaali baa nolol yaqaanaa Soomaaliduna waana dadkana barta oo na soo dhex gala wayna tixgeliyaan laakiin dadka aan aqoon oo nala kaga sheekeeyay bani aad kaga sheekeynayay islaamo Arizona laga soo doortay iyo gabar Soomaaliya la doortay ninkii magaciisi iyo wajigoogii ma fahan waa nolol sheegay nama arag weligayo fikir bay naga qaadatay laakiin hadday makhaayadahayaga iyo dukaamadayada iyo gobanimadayada iyo dadaalkayaga iyo magaciisiga waxay aaminsan yihiin dad warfare ku nool dad violent ah dad aan snacab macnaa waxaas aaminsan yihiin which is not true actually waa propaganda la ka sameeyay waayo dad bay dani ugu jiraa waxayna ka mid tahay nolosha in la ispropagandeeyo anaa fiican qof kale waa xun yahay iska magaciisi marka intaas oo dhan bacdama naloo qabo waxa muhiim ah anagu in aanu ilaahayna ka baqano iskuna xiraano wadana shaqeeno waxa kale oo anaga noo dhaxeeyana wanaagsan hoos waxayaga gacmahayaga aan hoos u dhaqano aad iyo aad saas kula talinaa dadka maasha allah aad iyo aad ay u mahadsan tahay mudane maxamed cali cigaal runtii Soomaalidu aad bay ugu riyaaqeen guushaada hambaliye fara badan oo meel walba lagu soo mariyay macno weyn bayna u leedahay dadka Soomaaliyeed inaad booska gaarto iyo kasii maaragtay kasii fogba insha Allah waxaan ku leenahay insha Allah ilaahay garabkaaga ha galo ilaahayna ha ku fududeeyo xilkaas mar walbana garabkaagana haddii ilaahay yiraahdo aad bad maaragtay ugu mahadsantahay inaad hoygaaga nagu soo dhaweyso oo maaragtay albaabada aad noo furto marka aad baan kugu mahad celinayna. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.